dhowr mar waxaan la kulmay dad ganacsato ahaa ama ganacsi lahaa oo ganacsigoodu ka baaba'ay markaas waxaan bilaabay inaan qiimeeyo ama aan isku dayo inaan wax ka ogaado waxyaalaha keena burburka ganacsiyada yar iyo heerka dhexe ee Soomaaliya runtii arrimo badan ayaa sabab u ah burburka ganacsiyada Soomaaliya laakiin waxaan rabaa halkan inaan ku soo qaato qodob muhiim u ah qodobkaas oo aan ogaaday intii aan ku guda jiray la talinta ganacsiyada ama shirkadaha ka shaqeeya dalka gudihiisa runtii waxyaalaha ugu badan ee keena burburka ganacsiyada ama shirkadaha Soomaaliyeed waxa weeye nidaamka xisaabaadka oo ah mid aan habeysnayn ama aan nidaamsanayn tusaale oo kale badanaa waxaa dhacda gaar ahaan ganacsiyada gaarka qof kaligiis uu leeyahay waxaa inta badan dhacda qofka inuusan xisaabin wixii soo galay iyo wixii ka baxay tusaale oo kale maanta wuxuu iibiyay $100 inuusan ogeyn $100 meeqa ka ah lafihii ama waxa loo yaqaano cost of goods sold marka taas waxay keenaysaa qofkii $100 uu iibiyay inuu isticmaalo ama qarash gareeyo hadduu qarash gareeyo uusan lafihii uusan ogaanin qofkii waxaa ku imaanayo in markii sanadkii uu dhamaado ama 6 bilood ay dhamaato inuu ogaan waayo ama lacag ay u soo hari weyso marka caqabada ugu weyn waxa weeye oo dadka ganacsatada haysta waliba kuwa yarka ganacsatada heerka dhexe iyo heerka hoose gaar ahaan ganacsiyada gaarka qof kaligiis uu leeyahay waxa weeye inaysan markasta aysan si sax ah ula soconin alaabahooda lafihii iyo faa'iidadii u saarnaa marka taasi waxay keeni kartaa mararka qaarkood caqabad ah in uu qarash gareeyo lafihii iyo faa'iidadii isku jirta tusaale qofka waxaa la rabaa markii maanta $100 alaab joogta uu iibiyo inuu ogaan karo alaabtan $100 meeqa ka ah lafihii alaabtii la iibiyay ama costigeeda kadib wuxuu ogaan karaa waxa u soo haray oo ah faa'iidada guud ama grosska profitka kadib ayuu ku xisaabtami karaa marka inuu bixiyo qarashaadka kale marka waxaa dhacaysa qofkii ama dhacda inta badan in qofkii iibkii maanta uu sameeyay inuu qarash gareeyo biri iibku sameeyay inuu qarash gareeyo hadhowna markii 6 bil ama bisha markay dhamaato inuu waayo cash ama alaab lacag uu ku dalbado alaabtii dukaanka uu ku iibin lahaa marka sidaas darteed talada ugu muhiimsan ee aan siiyay intii company ee aan arkay ee caqabadahaas uu haystay waxa weeye in qofka laba mid inuu sameeyo midda koowaad waxa weeye haddii dhaqaale ahaan aysan u saamaxayn inuu xisaabiye qaato inuu samaysto meel uu wax ku qorto record uu wax ku record gareeyo marka recordka ama meelaha inuu wax ku qoro waxay ka caawinaysaa inuu ogaado qarashaadkiisa intay leeyihiin gaar ahaan alaabta qiimaha ugu fadhiyo marka caqabadaas waa caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ganacsatada waana wax u baahan qofka inuu ka gudbo xalna u helo